في ربوع المجد كنا نسع النصر المبين ونبيد الظلم إنا نرنا نور اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا ليال waxaan isku dayayaa inaan ka hadalno dariskaasi ku saabsiisan fawaa'idda ama fawaa'idka tarbawiga ama waxyaabaha laga faa'iideeyo laga qaadanayo hijradii Nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi. ugu horeyn waxaan idin xasuusinayaa marka la yiraahdo Nabi Muhammad baa laga waramayaa macnaheedu waxa weeyaan acdamu shakhsiya taariikhiya fi العالم. taariikhda bini aadamka soo martay soona mari doonta qofkii bini aadamkii ugu weynaa taariikhdiisii qayb ka mid weeyaan. إذن تاريخ البشرية كلها أو نبي تلمامي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أرير نبي آدم سيد كودي أي لقوا الرمية. وحين كوا الرمينا قف الله سبحانه وتعالى وقرآن كيس كت المامي وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن ما أها قف عادية، ما أها تاريخ عادية. ولذلك النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه تاريخ دي سلقا ورما وحيوبا هانتي إنه إن بدن دقا ورارعنه إنه إن بدن هبنه إيضا قصصك أما أنبياها هذان عدة لقا ورما مكوك لا إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وقلت الماما يسدح فايدوك لقدسان. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى سدح دا آياداد وحا وكت المامية قصدوا إني عبرة وطهي وح لغو قياسته ولغو جانقويسته إني تهي وحكا الله المامية قصص كأنبيادو إنيين وح قلبك لغو دجيو. waxaa kaloo alla tilmaamaya subxaanahu wa tacaala qisadu inay tahay wax tafakur iyo qofku inuu wax u fiirsado keena. haddii cumuuman qisaska bini aadamka iyo ambiyadu ay noocaasi yihiin famaa baalukum biqisati muxamadin calayhi salaatu wasalaam. maxaad u malaynaysaa markuu warku yahay war ku saabsiisan nebi muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh iyadoo uu nebigu kaa yahay ayaa mar labaad masaladaynu ka warramaynaa waxa weeyaan taariikhda muslimiinta dhacdadii ugu weynayd waa masalada loo yaqaano hijrada. hijradu waxay culammadu yidhaahdaan waa dhacdada ugu weyn xilligii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh, isagoo nebigu dagaalo galay, saraayaa diray, wax badan soo maray. haddana markay saxaabadu qaateen go'aankii ahaa inay taariikh sameeyaan waxay taariikhda islaamiga u doorteen inay qaataan xadadkii hijriga ahaa, dhacdadii hijrada. dhacdadaasi oo ah dhacdadaynu maanta ka tirina taariikhda islaamiga ah 1427 baynu marinaynaa taariikhda islaamiga ee hijriga ee laga tiriyo laga soo bilaabo maalintaasi uu nebigu hijrooday salawaatullaahi wasalaamu calayh. idan laba shay oo waaweyn baynu ka warramaynaa. midi waxa weeyaan inuu nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi qisadu ku saabsan tahay. ka labaadna waxa weeyaan inay tahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa taariikhda nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh. maadaama ay nebigana ku saabsan tahay dhacdooyinkii soo marayna tii u weynayd aynu ku tilmaamayno waa masalo u baahan in badan in la isdul taago wax badanna laga faa'iido. taariikh الهجرة
culimada muslimiinta ah rag badan oo ka midi 3-4 kood baan arkay waxa ay si dhinac dhigaan hijradii nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi iyo xaadiثatul isra waa laba dhacdo isku dhadhawaa hijradu waxay ahayd socod nabigu uu socday oo la raadcaynayay oo la rabay in la dilo oo uu dhuumanayay oo uu god galay oo uu saxaaro lugeeyay oo uu dhul badan socday isra oo in yar ka horeysay al-isra wal mi'raaj wuxuu ahaa nabi maxamed salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo ilaahay intuu ka kaxeeyay maka uu geeyay bayt al-qudus oo qudus laga dheelmiyay oo samada la qabadsiiyay su'aasha isweydiinta lay culimadu isweydiiyaan marka waxay tahay hijradii maxaa ilaahay nabiga u siin waayay yana buraaq u fuulo maxaa waxaanu kadeeda loo mariyay ilaan markii alla subxaanahu wa tacaala dheelminayaba intuu ka qaaday maka ayaa baytul qudus oo ka fog madiina in badan la geeyay haddana laga qaadayo samada la qabadsiiyey haddana uu soo noqday habeen quru waxaa soo farsamo ah soo qabtay habeen quru socodka intaa leeg soo maray hijradana dhowr iyo 10 maalmood buu lugeynayay oo la eriyanayay oo uu godgalayay oo dhibtani haysatay culimadu waxay yiraahdaan waa maxay labada xaadiso maxaa tasawurku wuxuu keensanayaa nabi maxamed oo fakanaya ما مركنا براق لصية وفولة وكبودة ومكة دمت نسى على كذب وتجا مدينة وحيد هذا علماء مركب مسألة كور رميان حادثة الإسراء النبي الرفيق سواها جبريل براقنا وصارها إشادوا أنت قبضتهم مرقولة بودة وحي هيد بيد هذا رحلة تشريف وتقدير وتكريم waxay baydaahdaan safar oo alla subhanahu wa ta'ala nabiga sharfayay oo la karaameeyay waxay hayd safar la qabadsiyay inuu soo arko min ayati rabbina al-kubra ayaadka alla subhanahu wa ta'ala ee waaweyn inuu soo arko waxay hayd safar ilaahay uu qalbigiisa dejinayay waxay ka mid ahayd khusuusiyaadkii nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi uu gaarka ku ahaa waxyaabihii uu gaarka ku ahaa waa waxaan la rajaynayn qofnaba inuu helo ama hijradu waa meel loogu talagalay in daris tarbawi ay noqoto waa daris tashriiciya waa maxallu tashriic waa meel la rabo إنه النبي الشرعي أمديس وودتشي صلوات الله وسلامه عليه وميل الربين نقطة موضوع تأسي ميل لقد إذا النبي صلوات الله وسلامه عليه حالدها سمرك قفك مؤمن كاكو يمادان قاب كويال لها يوحي النبي محمد كقد لها صلوات الله وسلامه عليه بها لوجدي مركا وحي دهدان رحلة هجرته oo ahayd inuu daabad yar nabigu fuulo oo gaal hogaaminayo Abdullah ibn Urayqit gaal hogaanka u hayo oo uu saxaaraha maro waxa soo dhibi ku dhacdo waxay kaga gadisnay tii uu Jibriil la socday ee buraqa uu saaraa waxay kaga gadisantay midna isaga la karaameynayay midna waxa la rabay inuu ummadda sharci u dajiyo في ربوع المجد كنا نسع النصر المبين ونبيد الظلم إنا نرنا نور اليقين